halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ood si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga VOA Soomaaliga inaan kursigaas calafaan ka soo qaadno laakiin duruufo jira awoodood iyo mashqib jira awoodood ayay noo suurtagal waysay inaan kursigaas maanta anaga u tartanno. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Nuur Bukhaari. mahadsanid samakaab. boqolaal ka mid ah ciidamada booliska Maraykanka ayaa maanta la dhigay qaybo ka mid ah wadooyinka soo gala aqalka cad iyo xarunta Koongareeska ee magaaladan Washington DC si ay uga hortagaan suurtagalnimada rabshado ka dhaca mudaharaad lagu wado in galabta ay sameeyaan boqolaal ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. dadka isugu imaan doona caasimadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan boqolaal qof. waxay sheegeen in dibadbaxoodu uu yahay mid ay ku taageerayaan dadka u xiran faldambiyeedyadii ka dhashay weerarkii ay 6dii bishii January ee sanadkan ay mudaharaadyaal cariisan ku galeen xarunta Koongareeska Maraykanka ee Capitol Hill. xilligaasi ayaa waxaa xarunta ka socday ansixinta doorashada madaxweyne Biden. dadkaasi oo taageersanaa madaxweynihii hore ee Trump ayaa diidanaa ansixinta doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Biden. safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Australia ayaa gaf aad u weyn ku tilmaamay tallaabadii ay Australia sida lama filaanka ahayd ugu burburisay heshiis u dhexeeya labada wadan oo dhigayay in Australia ay xukuumadda Paris ka soo iibsato guujisyada naftada ku shaqeeya. Australia ayaa markii ay burburisay heshiiskaas kadib u weecatay dhinaca Maraykanka iyo Britain si ay u siiso qandaraaska samaynta guujisyo ku shaqeeya awoodda nuclearka. arrintaasi oo ay dowladda Faransiisku aad uga cadhootay kuna qasabtay inay u yeerato danjirayaasheeda ka jooga magaalooyinka Washington iyo Canberra. heshiiska ay Australia uga baxday Faransiiska ayaa ku kacayay $60 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. isaga oo ka sii baxaya caasimadda Australia ee Canberra ayuu danjire Jean-Pierre Thibault sheegay in Australia ay samaysay qalad aad u weyn isla markaana ay si xun u maareysay heshiiska. u yeerashada Faransa ee safiirkeeda ka jooga caasimadda Maraykanka ee Washington DC ayaa noqotay tii ugu horeysay ee abid tan iyo intii uu bilowday xiriirka diblomaasiyadda labada wadan qarnigii 18aad. madaxweynihii hore ee dalka Algeria Abdulaziz Bouteflika ayaa jimcihii shalay geeriyooday isaga oo ay da'diisu ahayd 84 sano, waxaana dhimashadiisu ay timid in ka badan 2 sano kadib markii uu iscasilay kadib cadaadis uga yimid dibadbaxyaal careysan iyo ciidanka militariga. Bouteflika oo ahaa haliyey u soo dagaalamay xorriyadda dalka Algeria ayaa xukumayay dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika in ka badan 20 sano ka hor inta aanan lagu qasbin inuu xilka ka dego bishii April ee sanadkii 2019. dhinaca kalena wadanka Algeria dariska la ah ee Tunisia boqolaal qof ayaa sabtidii maanta isugu soo baxay si ay uga mudaharaadaan madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid oo dhawaan kaligiis isku koobay awooddii wadanka taasoo keentay qalalaaso dhinaca dastuurka ah. dhinaca galbeed ee Afrikana kooxda militari ee xoogga ku qabsatay talada dalka Guinea ayaa sheegay in aysan aqbali doonin cadaadiska uga imaanaya madaxda gobolka oo doonaya in militarigu ay sii daayaan madaxweynihii la afgambiyey Alpha Conde kadibna uu dalka ka baxo. jimcihii madaxweynayaasha Ivory Coast iyo Guinea ee kala ah Alhassan Ouattara iyo Nana Akufo-Addo ayaa caasimadda Conakry ku tagay booqasho hal maalin ah iyaga oo ka dalbaday hogaamiyayaasha militariga in madaxweynaha ay u ogolaadaan in uu dalka ka baxo. dhegeystayaal warkii dunida galabta waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay wararkii caalamka. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa si toos ah uga dhageysanayseen. garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde waxaa maanta ka degtay diyaaradda Turkish oo duulimaadkeedii dib u bilowday kadib duulimaadkii shalay oo u saarnaa taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin oo lagu joojiyay dalka Jabuuti dibna loogu celiyey magaalada Istanbul. dhinaca kalena shir amniga qaranka ah oo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku baaqay inuu maanta uu dhaco ayaan ilaa haatan qabsoomin. shirkan waxaa la filayay in Fahad Yaasiin uu ka warbixiyo kiiska Igraan Tahliil.
haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle. maalintii shalay waddanka jabuuti waxaa dib looga celiyay diyaarad uu la socday fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo waxaana dib loogu celshay waddanka turkiga iyadoo diyaaradda turkish airways ee maanta timidna uusan la socon fahad yaasiin shirkii lagu ballansaana uu ka qabsoomay villa soomaaliya ayaana maanta baaqda sida ila xog ogaale u sheegeen v o eda qaariro kala duwan oo la sameeya villa soomaaliya si aan wax kaga weydiino shirkii lagu ballansanaa maanta 18 bisha ee ahayd warbixinta kiiska ikraan tahliila guddiga amniga qaranka ayaysan suuro gelin taleefanada ka jawaabaan fahad yaasiin xaaji daahir xilligaas wuxuu ku magacawnaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda waxaana looga fadhiyey warbixin ku saabsan kiiska ikraan tahliil haddase waa la taliyaha amniga qaranka iyadoo sidoo kalena hay-adda nabad sugidda hadda ay leedahay 2 taliye kaasay soo kala magacaabeen villa soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Roble. madaxtooyada Soomaaliya ayaa u magacaawda siihayaha ku-meelgaarka taliyaha hay-adda nabad sugidda inuu yahay gaashaanle sare Yaasiin Fari kuna magacawnaa taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir halka xafiiska ra-iisul wasaare Roble loo magacaabay Generaal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe sidoo kalena waxaa xafiiska Roble laga magacaabay gaar ahaan agaasimaha magacaaban uu magacaabay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir waxaana weli cirka ku shareeran khilaafka ka soo bilowday su'aalo weydiintii agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda Nisa Fahad Yaasiin ee ku saabsanaa xaaladda kiiska ikraan tahliil macadda halkay ku dambayn doonto iyo helidda xogta ku saabsan kiiska ikraan tahliil iyo guddiga amni qaranka ee la sugayay waxaase loo fadhiyaa halka laga aadi doono hadda meeshay joogto iyo xogta ku saabsan kiiska ikraan tahliil. Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho. magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa weli ka socota doorashada aqalka sare iyadoo la filayo in maanta la doorto 2 kursi halka 2 kursi oo kalena la isku haysto oo khilaaf uu ka taagan yahay. qaar ka tirsan musharaxiinta oo ka carooday hanaanka wax lagu wado ayaa jowhar isaga tegay. wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashada hirshabeelle ka socda waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee bartamaha Soomaaliya Xuseen Xasan Dhaqane. doorashada aqalka sare ayaa dib u dhac uu ku yimid 2 cisho ee lasoo dhaafay kadib ismarwaa ka dhashay qaar ka mid ah kuraasta la qorsheeyey in magaalada jowhar lagu doorto. waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey codbixinta 2 kursi oo ka mid ah 4 kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare ee maamulka hirshabeelle. kuraasta la qorsheeyey in maanta lagu doorto magaalada jowhar ayaa waxaa ku tartamaya ilaa 9 musharax oo mid dumar tahay. musharaxiinta maanta ku tartamaya kursiga koowaad ayaa waxay kala yihiin Cali Shacbaan Ibraahim, cabduqaadir xanafi sheekh bashiir, cabdulaahi axmed tawaad, caasho xuseen abuukar iyo cabdalle cabdi xuseen. kursiga labaad waxaa ku tartami doona maxamed amiin sheekh cismaan, daaha muxiidiin sheekh daa'uud, axmed maxamed cali afcaddi iyo yuusuf macalin xasan filadheere. dhinaca kale 2 musharax oo qayb ka ah musharaxiin ku tartami lahaa kursiga sumadiisu tahay eber 7 aqalka sare hirshabeelle ku matala ayaa gebi ahaan doorashada iyo magaalada jowhar isaga tegay kadib markii ay sheegeen in doorashada la musuqmaasuqayo. senator cismaan axmed macow oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaanada aqalka sare ka mid ahaa ayaa waxa uu shir jilaaad ku qabtay magaalada muqdisho isagoo cadaalad darro iyo faragelin ku eedeeyay madaxda sare ee hirshabeelle. kursiga qabiil baa iska leh Soomaalida maanta waa 4.5 باور شركة كرسي جاسنا وحكومة لنا سلاش إسحاق أي قدام كعين كوادا سير دواء أي لو جست ساد درادد أنا صدق مشرح أنا هن أنا والله يا عبد النور هي من إلى حسن يدو لي هذا صدق أنا هن هالك مركب وحكد على شيء كذي برشر يا مشاكلات يو عدالة ده حدنا مدحويني وقول نصلحيني أو كلا هذا لنا أرنتاس مدحويني وكذا هذا جاي رجال ومسلم ayadoo gurigiisa lagu dhex dilay madaxweynihii guriga madaxweynaha lagu dhex dilay gudoomiyihii dib loo geystay la ajli kursigaas aan maanta kalsooni aan ugu tartanna aan wayday anagoo shalay meesha u aadnay inaan tartanna kalsooni u aadnay inaan kursigaas calafaan ka soo qaadno laakiin duruufo jira awoodood iyo dhib jira awood ayay noo suurtagali waysay inaan kursigaas maanta anaga u tartanna.
cabdinuur ibraahim oo ka mid ah musharaxiinta ka tegay magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay sababta ay jowhar uga soo tageen inay tahay handadaad uga timid xubin ka mid ah guddoonka baarlamaanka hirshabelle waxaana uu sheegay inaysan dib ugu laaban karin magaalada jowhar ilaa ay ka helaan damaanad qaad amni. markaan aragnay qodobka 22aad dastuurka dalka ee qeexayo xaqa muwaadinka ee ka qaybgalka siyaasadda markaan la kulanay cagajugleyn iyo handadaad nooga timid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle mahad xasan cusmaan iyo rag uu soo diray oo ololeyn toos ah u samaynayo musharax xasan iidow maxamed asigoo adeegsanaya magaca madaxweynaha hirshabelle markaan ogaanay in gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad xasan cusmaan oo si toos ah hanjabaad micnaheedu yahay dil iyo qalqal gelin amni uu nagula kacay isaga oo sheeganaya inuu garab ka haysto madaxweynaha hirshabelle waxaan ku dhaaqnay tallaabooyinkan soo socda waxaanan soo jeedinaynaa baaq number 1 maadaama nafteennii loo soo dhigtay oo hanjabaad toos ah noo timid waxaan ku qasbanaanay inaan maanta diyaarad qaas ah ka soo qaadana degmada jowhar si muxuu ahay amnigeena iyo lafaheenna u nabad galaan. number 2 waxaan codsanaynaa in baaritaan lagu sameeyo cabashada aan soo gudbinay kadibna cadaalad aan helno taas oo noqon karta oo keliya tartan furan oo kursigan la geliyo si la mid ah kuraasta kale ee doorashooyinka la qabtay. in doorashada kursigan aan la qaban inta aan ka helayno cid kale oo noo damaanad qaadi karta ammaankeenna iyo si cadaalad ah loo qabanayo doorashada kursigaas. idaacadda v o a waxay la xiriirtay guddoonka baarlamaanka hirshabelle si ay uga jawaabaan eedeynta loo jeediyey laakiin nooma suuragelin inaan telefoon ku helno. sidoo kale waxaa weli khilaaf uu ka taagan yahay kursi afaraad oo ka mid ah kuraasta dib loo dhigay. muranka ka jira kursiga ay hore ugu fadhiday senator naciimo ayaa waxa uu ku qotomaa in laga dhigo kooto dumar iyo in rag ay ku tartamaan. guddiga doorashada hirshabelle oo qoraal soo saaray ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay eedeynta ay jeediyeen qaar ka mid ah musharaxiintii ku tartami lahaa kursi ka mid ah kuraasta taala magaalada jowhar. guddiga doorashada hirshabelle ayaa waxa uu ugu baaqay musharaxiinta kale ah cismaan axmed macow iyo cabdinuur ibraahim nuur inay dib ugu soo laabtaan magaalada jowhar ayna doorashadoodu dhici doonto maalinta axadda ee berito. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne. maamulada galmudug iyo puntland ayaa wada dadaalo lagu dhammaynayo colaad muddo ka taagneyd deegaano hoostaga gelinsoor iyo dhabbad taasi oo u dhexaysay beelo deegaankaasi kasoo kala jeeda. gudoomiyaha deegaanka dhabbad ee galmudug aadan cabdinuur galaal ayaa dadaaladaasi nabadeed wuxuu uga waramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq. walaal anagu waxaan nahay gudoomiyaha dhabadeed galmudug shalay waxaan isugu tagnay gudoomiyaha gobolka meesha la yidhaahdo mudug oo puntland arrimahan oo hadda ka hor ay ka hadleen qoladan mataqaanaa galmudug oo aagaas mataqaanaa koonfureed aadkii arrintaas ayaga waxay yidhaahdeen dhibaatada halkaa ka socoto in mataqaanaa idinka aad wax ka qabataan baa isaga la yidhi madaxweynihii puntland baa la yidhi wuxuu soo diray kii oo gobornatorihii uu soo diray waxaan isugu tagnay meesha la yidhaha saaxo wadahadalka bacdi waxaan ku heshiinay nabad dadkaas in la galmudug iyo puntland iska kaashadaan nabadda halka laga galo dadkaas wax badan waxaseenayo oo dirirayay nabadooda laga shaqeeyo intaan baan isku soo afgaran. wax qodoba ah oo aad soo meel dhigateen ma jiraan oo laga ambaqaadayo? qodobaha laga ambaqaadayo waa jiraan. waxaa laga ambaqaadayaa mar kastaba marka ugu horeysa xabadjoojin baa ugu horeysa marka xigtana waxaa fadhi baa xiga nabadayntii in lawada hadlo waxyaalaha mataqaanaa la kala tabanayo in lawada hadlo markaas waxa weeye dad dhex galo oo ayagu ka wada hadlaan markaas kabacdi haddii ilaahay idmo wixii markaas la gaaro oo dowladdu ay oo ayagu ay wada gaaraan oo markaas haddii wixii ay noqdaan wax la ilaaliyo oo haddii go-aan la gaaro ciddii fulilahayd baa la rabaa. marka waxaa weeye dee arrintii iska bedeshay waxaa isku soo bedeshay in dowladihii meeshaa ka dhisnaa ama galmudug ha ahaato ama puntland ha ahaatee in arrimahan iyo dhibaatadan jirta in wax laga qabto sidaa unbaa lagu heshiiyey. tillaabooyinka ugu horeeya ee hadda la qaadaya maxay noqonayaan?
tilaabada ugu horeysa la qaadaya xabad joojin weeye. maxaa idiin xiga marka xabadda la joojiyo gogosha nabadeed xaggee lagu ambaqaadayaa? wallaahi hadda annaga arrintaas waxaa wata gudoomiyaha gobolka yaa wakiil looga soo dhigay. isagaa marka meeshii la fadhiisan lahaa, meesha laga bilaabayo, sidii la yeeli lahaa ayagaa gacanta loo geshay. qoladaasuna waa usoo geliyeen, waxay ogolaadeen in nabad halkaa ay ka galaan. annaguna waa usoo gudbinay in mataqaana halkaa nabadeeda ay galaan. ayagaa markaa meesha ay ka dhigahayaan, gogosha meeshay ka dhigayaan, wadahadalka meeshay ka bilaabayaan. wax annagu aan xukuno maahan, waxa xukuma qoladan dhexdhexaadinta dowladda xukuma. dhowr jeer oo la isku dayay in wadahadallo nabadeed loo fadhiisto ma suurtagelin. rajada hadda aad qabtaan in wadahadalkan uu noqdo mid miro dhala intee leegyahay? rajada hadda aan qabno hadalkaan uu miro dhalo mid aad iyo aad u fiican weeye. sababta waxaa weeye awal hadda wixii ahaa aan isku nimaadnayo saasaa yeella iyo laba qolay ahaayeen oo shacbaho haddii ayaguna mataqaanaa xoog maanta ay wixii ku ilaaliyaan aysan haysan. mar haddii marka ay ku midoobeen galmudug iyo puntland, haddii ay ku midoobeen in arrintaas ay wax ka qabtaan, rajo weyn oo fiican baa ka qabnaa. maxaad ugu baaqi lahayd dadka dhinacyada wada degan ee colaaddu ay ka dhexaysa? waxaan ugu baaqaynaa, waana leenahay, waana u sheegnay, 10 jeer aan u sheegnay, haddeeraan qaarkood way hadlaynay. waxaan leenahay ha loo soo istaago labadaas beelood oo dagaalkii awku ka dhex waxa badan dirirhayay ugu wanaagsaneyd bay maanta maraysaa. galmudug iyo puntland hadday iska kaashadeen oo nabadaas ay rabaan inay wax ka qabtaan, waxaa la rabaa inteena kale inaan u diyaargarowno oo nabadaas soo dhoweyno. kaasina wuxuu ahaa aadan cabdinuur galaal, gudoomiyaha deegaanka Dhabad ee galmudug, una warramayay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa war-saxaafadeed uu toddobaadkan soo saaray ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa, gaar ahaan xilka qaadis ama xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka. war-saxaafadeedka ayuu Farmaajo ku sheegay inuu tallaabadan qaaday markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku-meelgaarka uu qaaday ra-iisul wasaaraha, kana weecday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashada. wuxuu sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jihayn kara qalalaase siyaasadeed iyo mid amni, uuna sameynayo iskuday ku-xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si qaldan u isticmaalid hay-adaha qaarkood sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa islamarkiiba soo saaray war-saxaafadeed uu kaga jawaabayay qoraalkii madaxweyne Farmaajo uu ku sheegay inuu hakiyey awoodihii ra-iisul wasaaraha. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa saxaafadda u akhriyey qoraalkii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareermarsan dastuurka ku-meelgaarka ah ee qaranka, wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobka 87 iyo 9aad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu uu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah uu ugu tuntay qodobka 9aad ee dastuurka, kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda, dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka. waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu jabiyey qodobka 100aad ee uu ra-iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada. madaxweynuhu waxa uu jabiyey qodobka 103aad ee dastuurka ku-meelgaarka ah oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra-iisul wasaare cusub, iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda.
ra-iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4 faqradiisa 1 ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo keliya go'aanada waafaqsan dastuurku wuxuu caddaynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa xiisadda sii kululaanaysa ee u dhexaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay uga dhigan tahay dadaalada la doonayo in looga gudbo marxaladda kala guurka ee soomaaliya. dhinaca kale xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in dowladda jabuuti ay xirtay taliyii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin oo dhowaan loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashe ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan sii xoojinaynin xiriirka labada dowladood, waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay falka ku-xadgudubka ah ee xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah sida uu hadalka u dhigay. war-saxaafadeedka ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ay fahad yaasiin ku xaniibtay garoonka diyaaradaha ee jabuuti. sarkaal ka tirsan dowladda jabuuti oo magaciisa ka gaabsada ayaa sheegay in fahad iyo wafdigii la socday markii ay ogaadeen inaysan muqdisho tegi karin ay dib ugu celiyeen halkii uu safarkooda kasoo bilowday oo ahayd magaalada istanbul ee dalka turkiga. wasiirka maaliyadda ee jabuuti ilyaas dawaale ayaa qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay waxa uu si walaalnimo leh uga codsaday afhayeenka madaxtooyada soomaaliya inuu ka joogsado hadallo uu ku tilmaamay inaysan habboonayn, islamarkaana jabuuti jawaab rasmi ah ay ka bixin doonto arrinkaasi. aan kusoo laabanoo dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka. siaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen, madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay toddobaadkan inuu shaqada ka joojiyey wasiirka koowaad ee dalka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo islamarkiiba ka jawaabay qoraalkii uu madaxweynaha shaqada kaga joojiyey ayaa ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn. haddaba doctor nuur xasan oo ka faalooda arrimaha bariga afrika oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan marka hore weydiiyey saameynta uu khilaafka madaxda sare ku yeelan karo dadaalada la doonayo in looga gudbo xilliga kala guurka ee soomaaliya. saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa. waxaan ogsoonahay muranka hadda dhex yaala labada xafiis ee dalka ugu sarreysa waa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha inay yihiin meeshii ay wax ka fulayeen. marka arrintan muranka ah oo midba midka kale uu u fasiranayo dastuurka sida asaga uu rabo, saameyn xoog leh ku yeelanaysaa xagga nabadgelyada iyo xagga doorashooyinkaba. doorashadii hadda loogu talagalay inay aqalka hoose lagu dhamaystiro octoobar 1 ahayd uma muuqato inay arrintaa dhacayso, iyo tii november 25 ayada nafteeda ma muuqato inay dhacayso. marka xagga nabadgelyada iyo xagga doorashooyinka labadaba xagaldaacin fara badan bay ku keenaysaa baan aaminsanahay. madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafa ee xilliyada u dambeeya ee muddaxileedkooda ma aha kuwii ugu horreeyey. marka khilaafka labadan muxuu kaga duwan yahay ee kuwii aan hore usoo aragnay? waa su-aal wanaagsan cabdiqaadir. labadan wuxuu kaga gedisan yahay laba arrimood. waa kow, ogsoonow bishii february ayuu madaxweynaha ka dhammaaday taamkiisii ama xilligiisii xafiiska. waa kii abriil ku darsaday baarlamaanka intuu shiriyay ku darsaday 2 sano. khilaaf waa kii uu dhacay, kadibna markaa uu ra-iisul wasaaraha cusub uu arrintan soo galay. madaxweynena kadib markaa uu arrintii dib uga noqday oo yidhaahday maaragtay 2 sano dib baan uga noqonaya extensionka ahayd ama uu ku darsaday. marka ka gedisnaanta uu kaga gedisan yahay arrintan murankan waxaa weeye kow, hawsha soomaalidu oo kolba maalinba sanadba sanad ka samaysama afrika sanaba meel ka sarreysa sii gaaraysa, dadka oo usoo miyirsaday garanayana waxa dowladnimada waxa ay tahay, iyo sida muranka natureka of argumentiga ama muranka dooda dhex taagan hadda labada xafiis ee ugu sarreysa dalka waxa uu yahay. waayo waxa laisku haysto waa xagga nabadgelyada, waa xagga doorashooyinka, waa xagga xafiiskii iyo constitutional crisis. marka weli ma soo marin arrimaha noocan oo kale oo isku wada tegay, weli dalka soomaaliya ma soo marin. hadda khilaafka u dhexeeya ee madaxda sare ee dalka markaad rogrogto maxaa is leedahay waa laga baran karaa? waxaan isleeyahay in laga baran karayo in dalkeenu uu dal curdana yahay, tanaasul badan in la sameeyo ay habboon tahay, especially dadkan political classka ama dadka siyaasiyiinta, hogaanka siyaasiyiinta, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-isul wasaare maxamed xuseen